Alaabtan yarta oo weelka inoogu jirto waa scrub yar oo fudud oo kilkilaha iyo qoorta lagu cadeynayo oo madowga wasaqda waxaas oo dhan hada ka dejinayo kilkilahana dhaqaayo oo cadeynayo sidoo kalena qoorta hada waxa waaye lagama warami karo 2 maalin oo kaliya oo isku xigta hadaa isticmaashid waal inay kilkishana dhalo ku noqonayso sidoo kalena qoortana ay ku cadaanayso meelaha kale oo jirkaaga uu ka madow yahay waad u isticmaali kartaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran najax qurxinta soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin dhamaantiin soo dhawaada channelkeena najax qurxinta uga barateen waxyaabaha dabiiciga oo la isku qurxiyo waa walaashin hadeenaysid cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada hadda sida title video ku soo aragteen qaybta ugu horeysa video ku soo daawateen wixii wara wixii hadala hada qaybta ugu horeysa videoga ayaan ku soo koobay walaalahayga marka hada hadalka iyo warka in kuma badinaaye alaabtan dheelitiranka oo lagu dayactirayo kilkisha iyo qoorta ayaan hada maanta ka soo tooranayna insha Allah oo hada kilkisha iyo qoorta dhaqayso cadeynayso madowga wasaqda mugdiga wax dhan hada ka dejinayso insha Allah marka igala bogto videoga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajinayno iyo sidaan u sameysanaynay waan ku mahadsantiin sida quruxda badan ay iga socotiin bismillaah alaabtii fududeed ayaan hada hagaajinaynaa marka hore soo qaatay weel ayaan soo qaatay alaabtan isku la dardarsano sidoo kale marka koowaad waxaad u baahan tahay waxa caageerka waxa ku jira waxa waaye oo aan qaandada aan ku daraayo waa bariis cadde shiidan waaye waa bariis shiidan ayaa u baahan tahay hal qaando bariis shiidan ah ayaan waxaan ku shubay weelka yara oo inoo diyaarsana bariiskana waxa waa weytin fiican uu leeyahay maasha Allah jirkaaga meesha marsatid waad ka dareemaysaa hada jirkana wasaqda uu ka saaraa wuuna cadeeyaa uu nadiifiyaa sidoo kale waxaad kale u baahan tahay shumburo ayaa u baahan tahay waxa caageerka oo kale waxa inoogu jira waxa waaye waa shumburo waaye hal qaando shumburo ayaan ku daray hada bariiskii weelka inoogu jiray oo inoo diyaarsana shumburahana jirka uu dhaqaa uu nadiifiyaa wasaqda ka saaraa lagama warami karo hada maasha Allah sidoo kale waxaad kale u baahan tahay kafee ayaa u baahan tahay hal bac oo kafee ayaan ku daraa ama Nescafe sida aad taqaanid kafeega midka bacda ayaan aniga isticmaalaya midka bacda midka dhalada midka caaga mid alaale midkii ay heli kartid ayaad isticmaalaysaa insha Allah sidoo kale waxaad kale u baahan tahay haruud ayaa u baahan tahay waa haruudeena caadiga ah hadda ayadana korka lagu dhaqaayo oo lagu nadiifinayo hal qaando haruud ah ayaan ku daray alaabta inta isku kaay dardarsaneed ayaan hadda isku qasaaya oo aan isku walaaqaya intay dharayga tahay alaabtan waxa waay maasha Allah lagama sheekeyn karo marka koowaad isticmaashid ayaad jirka ka dareemaysaa jirkana hadda waxyaabaha dabiiciga wax u dhaamo waa la waayay markii alaabtan isku soo qasay sidoo kale waxaad kale u baahan tahay khalka cad ayaa u baahan tahay alaabta caaga inoogu jirto waxa waaye waa khalkii salarka lagu darsanayo waaye biyaha khalka ayaan ku qasaaya hada alaabteeni weelka inoogu jirtay meesha aniga khalka ka isticmaalayo liin ayaad ka isticmaali kartaa liin dhanaan ayaa ku bedelan kartaa alaabtii hada markii biyihii khalka aan ku soo daray alaabtii ayaan isku qasaaya oo aan si fiican isku dhexgelinayaa liina ku darsan kartaa sidoo kale biyaha ubaxa waad ku qasan kartaa hada alaabtii markii aan isku soo qasay oo aan si fiican isku soo dhexgeliyay ugu dambeyntii sidaas ay inoogu soo baxday maasha Allah biyo saa'idan maahan adeeg saa'idan maahan normalkaas oo kale ayaa la rabaa inaad ka dhigtid haatan marka alaabteeni fududeed oo kilkilaha iyo qoorta lagu dhaqaayo oo lagu nadiifinayo waa inoo diyaar kaliya waxay u baahan tahay in jag la isku siiyo oo la isticmaalo marka sida u isticmaalaysa waxa sameynaysa alaabtaada diyaarsanaysa kadibna kilkilaha ayaad marsanaysaa ama qoorta meeshii aad ka madowdahay ayaad marinaysaa waxa la rabaa marka marsanaysa inaad si fiican ugu masaajisid la rabaa oo si fiican hadii aad u marsatid markii aad marsatidna waxaad ku joogaysaa cabaar kadibna waad iska meeraysaa oo waad iska dhaqaysaa marka alaabtan sidaas loo isticmaalaa alaabtan xataa dhabarka waa marsan kartaa laakiin wajiga ha marsanin waayo waxa ku jiro khal ayaa ku jiro khalkana waxa wajiga uma fiicno marka waa kaas hada alaabtan sidaas loo isticmaalaya lugaha iyo gacmahana waad marsan kartaa ayadana sidoo kale 2 maalin oo kaliya oo isku xigta hadaa iska marsatid meelaha uu jirkaaga uu ka madow yahay waad ku faa'iideysaa oo madowgaas jirka kaaga jira way ka saaraysaa oo way dhaqaysaa meeshii madowgeedna hada way nadiifinaysaa oo way cadeynaysaa way clean gareynaysaa marka alaabtan insha Allah ila soo tijaabiyo oo hada igala faa'iideysta hada waa 2 days oo kaliya ayaad isticmaalaysaa marka jirkaaga isbedel ku aragtidna hada sidoo kale u sameysanaysaa oo aad marsanaysaa alaabtan marka maanta kale isticmaashid bariyo kale ayaad isticmaalaysaa waana safe gareysan kartaa oo meel waa dhigan kartaa marka halaabayso
weel yaro isku dabool ku shubo qaybta hoose fridge-ka dhigo haddaad fridge-aysanina meel caadi iska dhigo insha Allah. hadda videogani maanta intaas ayaan kusoo afmeerayaa waa inoo kulantay dambe oo xiiso leh anigoo nii sidoo video kale cusub walaalahayga videogana sii share gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan channelka haddii aad ku cusubtaan soo dhawo minanka channelka inoo subscribe gare inoo like gare haddii aad hore noola joogtana waad ku mahadsantahay mar walba sida quruxda badan ay noola joogtid.